wuxuu daaran yahay arrin nabadgelyada ku fool xun oo aanu baryahan oo dhan aanu u dul qaadanaynay beel ahaan dhulku dadku deegaan buu kala leeyahay waxna waa wada leeyahay waxna waa kala leeyahay habaal halkan oo ninka wasiirka ah ee wasiirka arrimaha gudaha awgii ku aasan yahay waracada la yiraahdo oo dhulka deegaanka beeshan Daawud Ismaaciila baabriyahan baninka wasiirka iyo reerkoodu waxay ka wadeen qalalaas arrintaasi waxa isu kaayay qaban waayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amniga qaabilsanaa oo haddana isaga amni darradii wada horta wasiirka amnigu hadduu isagu nabadgelyadii baabiinayo anigu dacid u taagelaysa garan maayo waxaan leeyahay wasiirka amnigu wasiirka arrimaha guduhu xabaasha meesha wax laga wada ee mushkiladu ka dhacaysa waa xabaashii awoogi marka waxaan leeyahay arrintaasina isku dhac beeleed bay keenaysaa mid madaxweynahan leeyo madaxweyne waxaan ku leenahay wasiir arrimo gudeedo ammaanka ilaaliya oo isagu xabaalaha awoogi dadka aan dul geynin geebaan ku leenahay meesha hadii kale wax ka qabo taa isaga intaasaan leeyahay beeshan aan walaalaanay waxaan leeyahay war heedhaha arrintaasi haddaydaan raali ka ahayn inaan waran cadana ma samayn karo dad wada dhashayna waynu nahay guud ahaan bayado Soomaaliland wada dhashay gaar ahaan waaba la isku keentiriya waarnimayo dad wada dhashay baynu nahay aan kala haad qaadano halka dhiftaynu ka sameeynaa inagu baynu ku dhacaysaa waxaan leeyahay aan dul qaadano horena waynu u dul qaadanaynay imakana aan dul qaadano meesha mushkilada ka dhacday gudoomiyaha degmada Salaxley waa lagu rasaasay waa dad shicib qoriyasta waa waracada waa halkan waa dhulkii Soomaaliland dawladdu waa tan oo aaruyishan boqol qofkay dan u leeday gelisa waxa kuwa imaka rasaasta ridaya waa kuwii intay wax ka sameeyeen inta la soo qabqabtay iyadoon ciidiisay la garanay haddana meeshii tagay imaka istabay sameysteen baa leeyahay dadka way baarayaan baabuurta ilaahay baan idku dhaariyay miyaan Soomaaliland miyay ka dhacaysaa annaguna markaa aan istaba samaysano haddii dadka shicibka intay istaba samaystaan ummadda lagu baarayo anagu garan maayo meesha arrinka meesha laga helay waxaan madaxweynaha u sheegaynaa oo dawladda u sheegaynaa anagu waxba imaka cambaareen tarimayso waxa weeye falku waa in dawladdu indha yeelato waxa la yiri dawladdu indha qoraanjay leedahay mushkiladda halka ka dhici doonta waanu ka digin ilaahay naguma keeno dagaal sukaye ma jeclin tolkayeenan siidna ma jeclin xumaan ma doonayno meel kale oo u sii guurno oo ka tagna garan mayno anigu markaa ma fahmin ujeedada xabaal meel waa lagu aasi karaa waana ixtiraamayna nin odayaho oo wadaad oo dhintayna uu ahaa laakiin mushkiladda laga wado waxa weeye ka dhintayna uma roona kan nool uma roona dadkaygan wada dhashay uma roona ab iyo abtibaanunay xidid baanunay tol baanunay waxba ma kala lihin waxaan leeyahay war arrintaa farxumada laga ilaaliyo ha laga daayo oo dawladdu wax ka qabato wixii umasha u dana ilmaana u dana ninna uma godna nabadgelyadu ninna uma godna waa in loo wada dan haday wax dhacaan cid ay u sii daraan ilaahay baa yaqaan waxaanu leenahay deegaanka waa la kala leeyahay beeshayda gala deegaankeedu wadada waaxlay iyo wadada kale wada bariis baahay waa la yaqaan tan ceelkoodii buu ahaa waa lagu wada nooliye cid aanu riixna ma jecelin in wanaag lagu wada noolaado baanu jecelay walaalnimo aan ku wada noolaan ayuun baan anagu inta ku bariyeen baliyada magacyo loo bixiyaa bal mataan baa jira waa la soo dul degay hadaba li shiraadii la soo dul degay ma ogolaadeen haddana waa la iska dul qaato waxa la yiri nabadgelyada ka weyn oo ka qaalisan waxaanu leenahay war cidii wax ka qaban lahayd maanta waa cid hormuudka u ah xukuumadda inay iyadii caawa dabada ka wado shacabka iyo makasta oo ay istaba u samayso oo ay tira halka aan wax ka sameeyo waa nusqaan mid meesha leeg maaha waa mid ninkii isagoo madaxa sidaa yeela uu ku sharaf dhacayo waa mid wixii dhibaato ka timaado uu isaga ay dhakadiisa noqonayso waxaanu leenahay waxaad ka qaban kartaa wax ka qabo Ali Maxamed oo wax ka qabo Ali Maxamed oo wax ka qabo war dadka rasaasta ridaya ee istaba samaystay war wax ka qabta war xukuumadda wax ka qabta oo hadii alla idmaayo wasiirkuba qaldamo
dee ka weyn oo wax ka qabo madaxweynaha ahow adiguba wax ka qabade ilaa nabadgelyada aadba xil baa kaa saaran haddii kale lagama hadlin oo wax garad iyo hoggaan dhaqameed kamuu hadlin berri yaan la odhanin ha calaamadsanaato ha suntanaato arrin keeni karta nabadgelyo darro oo salka ku haysa degaamaysi oo odayaashii iga horreeyey ay carab ku dhufteen isla markaana uu gacanta ama lugta kula jiro wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde oo si ay ka noqotayba isagu doonayo inuu dhulballaarsi ku sameeyo degaanka labada reer u dhaxaysa waxaanu halkan ka eedeynayaa anugu ka cambaaraynayaa wasiirka arrimaha gudaha oo aan midaan geednaba loogu soo gaban oo qaawan isagoo halkaa ka wada caddaynteeduna waxay tahay waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa sandaqada meesha laga taagay sandaqadaha markii laga taagay golihii degaanka degmada Salaxley oo halkan xubno ka mid ah aan ku arkayay inay fadhiyaan iyo saldhigii ayaa qaybta la soo hadlay waxay noqotay in ay bileyskii markii ay ku baxaan la soo qaado sandaqadihii ay halkaa ka dhisayeen cidda ama xigaalka oo cali maxamed waran cadde wasiirka waxa la keenay qaybta bariga magaalada Hargeysa muddo kadib halkii criminal baahdo nabadgelyo darro ay abuurayeen ama maxkamad lagu saari lahaa ama inamada si kale loo xalin lahaa muddo kadib dib baa loo celiyay inamadii wixii way qaateenoo awood ay ku qaateenna waynu garan karaynaa inay tahay amar wasiir oo dadku caamo maaha markii ay qaateen haddana waxay dhexda u galeen maalin dhaweyto duqii maayarkii Salaxley iyo taliyihii saldhigga isagoo ku sii jeedo oo kormeer waatii abaaru ay jireen ilaahay baa deen laga soo jabiyay ayagoo ku sii socda ballimatan ayaa dhexda loo galay xabadaha si toos ah loogu riday cidda ku riday waa inay hebel oo la garanayo cali jifadiisa ah oo cali walaaladii oo cali ilmaadiridii haddii wax laga qaban waaye macnaheedu waa maxay eeg maaha in la iska eedeeyo qofka laakiin waa in wax laga qabtaa haddii maanta aan qori qaato oo aan ku rido cid ka mid ah bulshada reer Somaliland oo waxba laga qaban waayo cid baan dabada ku hayaa way timir laf baa ku jirta anigu waxaan leeyahay caliyo taa horena waad gifto adiga siiyay carruurta inamadan meesha ka waday markan labaad inamada xabadda ku riday maayarkii dhamaa haddii ay ku dhici lahayd ilaahay ilaahay baa garab mariyay ma sidan ay ahaan lahayd bay ila tahay caliyo kula tahay waxaan qabaa caliyo adigu waxaad abuuraysaa nabadgelyo darro waxaan leeyahay suuragal ku noqon mayso horey noo ogeyn ballimataan inta kaamir laga dul sameeyay la yiraahdo elections constituency dhib ku baaba'ay oo haba yaraatay la yiraahdo lagama codeynayo anigu waxaan leeyahay cali maxamed waran cadde waxa soo dhan adaa ka mas'uula cadeemeedina waa kuwa jiida cid kale oo amniga wasiirka xigeenka amniga bin wuu joogaa haddii aanu u habreenin cali waran cadde ha loo diro oo taliyaha bileyska ha loo diro muxuu ahaa Cabdullaahi Fadal qisooyinka aanu ka hadlayno oo dhan waa dhab waxaan doonayaa wax laga qabto anigu waxaan adkaynayaa oo wasiirka leeyahay dadka imika nabadgelyadu dhexdiisu ka nabadgelyaantiisu ka muuqata waa dadka adigu ka dhalatay wasiirkana wahay arintaana waxbaad ka qaban kartaa adigu haddaadan raalli ka ahayn anigoon dawlad kale u tagin oon madaxweyne gaadhin waxaan leeyahay oon aad iyo aad ugu adkaynayaa arintaa dawladda ka fado waxaan leeyahay halka waxa yiri ka simbireer lagu sheego waa in la damiyaa halka odayaasha ka hadlayna waran cadde ilaa deertii dhaweyto noocaas ay ahayd kolba cid baa imanaysay rabuurka iyo warbixinta waa la keenay wasiirka iyo dawladda waa loo keenay mar baa laga qaaday meeshii la xiyay baa leeyahay haddana lagu soo noqday baa kale leeyahay waa joogaan dadkii kalena imika way la xun tahay arintu saa ay sheegaan dulqaadkii hore uu naga dhamka uu yar yahay in badan baan dadka abhinaynay iyo reeraha hortaagnayn waxba sameeynina nabadgelyada ilaaliya annaga xagan ka hadli doona wax badan baan ku fikir fiirsanay ummadda imika arigaas uu naga dhamaaday waxaanu leenahay xukuumadda wasiirka iyo golayaasha sare dawladda iyo madaxweynaha waxaanu sheegaynaa halka in amni darka socoto oo amni ka xumaan doono haddii aan wax laga qaban waxaan ku soo koobayaa
nabadgelyo aan wada ilaashano oo cid walba wowdan hal wada ilaashado oo cidii ay qusaysaanaha si ilaalisay dee wixii saarani hordhac waxa looga sii dhigayaa intayna hawshan nabadgelyo faraha kala bixin madaxweynaha loogeysiinaya wasiirka aadaan dib kugu soo celinaan ku sheegaynaa annagoo odayaal is xilqaanay shirka jaraa'id ee maqsadkiisu yahay nabadgelyo halka la degan yahay ee hawsha laga wado horaba jiingadaha waa looga qaaday deeimkan waxa ku soo celiya jiingadihii ilaa abtuna hadda la garan maayo wasiir qayladoonka adiga u amniya adiga u ehela adiga u xigta marka waxaanu leenahay siday tay waa inaad wax uga qabataa madax dhaqameed wanaagsan ay Soomaaliland leedahay maadaama ay madax dhaqameed wanaagsan leenahayna waddankeena waxba ka dhici maayaan madaxweyne waxaan ku faraynaa nabadgelyadeena cuqaasha ayaa ku fulan cuqaasha ayaa kala shaqeynaysa kuwan aad u dhiibatay ka shaqeyn maayaan nabadgelyada iyaga xumeynaya ka koowa wax ka qabo baan ku leenahay muddo dheer baa horta nabadgelyo daradan laga shaqeynay meesha uu racad la leeyahay waxay u dhaxaysaa 5 kaam 5 kaam waa bahadhamal waa balli ciise waa inay gare waa balli mataan iyo qorjabli meel bini'aadmi ka dhex daydaya kaam maaha ninkii ka dhex daydayaana waxaan qabaa kaam uma baahnee wuxuu ka dhex daydayaa fidma reeru waxaan aad iyo aad u leeyahay madaxweyne meeshan cid u soo dir indha la xela jeclo ku eegaysa oo aan indha fidma ku eegin oo bal eegaysa meesha oo qiimeynaysa oo intaasoo kaam dhexdoodii oo maanta ciyaar laga dhex tumaayo markaa fidmo uma baahna Soomaaliland waa dhabdhab waxaynu wada ilaashanaynaa waa amni reero walaalo la iska hor keenana horaanu waa arag uga noqonay annagu meeshan dhowr goor ayaanu guddi ahaan ka howlgalnay cid u dirnay dhacdadii u dambeysay imika waxyaabaha lala yaabay waxa ka mid ah tuulada la yiraahdo Ballimataan waxa ku yaala school boarding ah schoolka boardingka maalin dhowta raashin baa loo diray waxa la joojiyay gaadhigii raashinka u siday dugsiga dabeetana waa la baadhay xageed ku socotaa raashinka yaa ku soo dhiibay xageed ku wadaa wax aan hore inoo soo marin ay arintaasi noqotay cadeynteediina waanu haynaa dee xubintii naga tirsaneed ee raacday baa joogta inankii gaadhiga lahaa baa jooga waxaanu leenahay te adeer markay arintu marayso in stop intoo la samaysto la yidhaaho halkeed ku socotaa wax markaa nabadgelyadii ka hadhay ma jiro intaa dadka iyaga anaku waanu wacyi gelinaynay nabadgelyadaanu ku wacyi gelinaynay waxa ka horeeyay maayirkii iyo taliyihii ciidanka bilayska degmada Salaxloo ayakuna lagu rasaasiyay dawladuna way haysaa warbixintoo labaduba midna taliskiisa ciidanka bilaysku u diray taarka maayirkuna wasaaradda arrimaha guduhu la soo xidhiidhay haddii aan tallaabo degdeg laga qaadin arrintaasi waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne inay nabadgelyo darrado kow ka noqonayso sidii odayaasha hore sheegeen hadda waxa ku filan oo qura wasiirka arrimaha gudaha cid walba ka furan kara calina wuxuu ka sheekeynaya nabadgelyo ilaa bari ilaa galbeed meesha ku khudbaday wuxuu yidhahdaa nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaana ku filan in cali lafta la yidhahdo caliow nabadgelyada ilaali cod dheer baanan kugu leeyahay guddidii matalaya caliow wasiir nabadgelyada ilaali